وإنا إليه راجعون anigoo ku hadlaya magacayga iyo magaca jaaliyadda galmudug ee USA anigoo magacaygu uu yahay maxamuud caalaqaaye ahna wakiilka galmudug ee USA isla markaana ku hadlaya magaca gudoomiyaha jaaliyadda galmudug ee USA cabdi xukun aadan bariire gudoomiye ku-xigeenka jaaliyadda USA maxamed qasaaro iyo dhammaan guddiyaasha galmudug ee USA uu ka mid yahay Dr. Cabdiqaasim, Dr. Cirro, Farxiyo Seeraar, Cali Bidaar iyo dhammaan guddiga oo aanan magacyadooda hadda soo koobi karin. waxaan halkaan aad iyo aad tacsi tiiraanyo leh aan ugu diraynaa mas-uuliyiintii ku geeriyooday shilkii gaari ee ka dhacay degmada Saddex Iglo oo uu ka mid ahaa guddoomiyihii hore ee gobolka Mudug isla markaana ahaa wasiiru dowlaha dib u dhiska Aweys Cali Saciid, wasiiru dowlihii maaliyadda Axmed Cabdullaahi Diiriye iyo nabadoon Cabdullaahi Yuusuf Guuleed Digsi ee ku geeriyooday shilkaas. ugu horreyn waxaan tacsi u diraynaa mas-uuliyiinta dowladda galmudug oo ay ka geeriyoodeen mas-uuliyiinta. waxaan kaloo tacsi u dirhayaa dhammaan shacabka galmudug meel kasta uu joogo tacsidaan tiiraanyada leh. waxaan kaloo tacsi u diraynaa eheladii iyo qaraabadii ay ka geeriyoodeen mas-uuliyiinta gudanahayay shaqadii qaranka iyagoo ku jira ku geeriyooday jannadii raxmo allah ka waraabiyo. waxay ahaayeen niman aad iyo aad ay tabi doonto shacabka galmudug, niman wax ku ool ah ee qayb ka soo qaatay dhisidii iyo horumarintii galmudug. jannadii raxmo allah ka waraabiyo. camalkii wanaagsanaa ay ummadooda u qabteenna ilaahay ha ka abaalmariyo maanta ayay u baahan yihiin. annaguna waxaan aad iyo aad tacsi u diraynaa dhammaan eheladii ay ka geeriyoodeen annagoo la wadaagayna tacsida iyo geerida ku dhacday mas-uuliyiinta. waxaan u qaban karno jannadii raxmo allah ka waraabiyo. ilaahay aan meel fiican jannadii firdowsaha geeyo. waxaan hadalkayga kusoo gabagabeynaya. wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.